أحمد سعيد عيقي oo ah suxufi rugcada Soomaaliyeed muddo 20 sanadood ahna ka soo shaqeynayay BBC dan laanta afka Soomaaliga ayaa laga bilaabo maanta waxa uu howlgab ka noqonayaa shaqadii BBC-da muddadaas 20 sanadood ah Axmed waxa lagu xasuustaa sida joogtada ah ee wararka ugu soo gudbinayay dhageystayaasheena Axmed ayaa hawsha saxaafadda waxa uu ku soo biiray isagoo aad u daayar waxauna ka mid noqday xidigihii TV-ga iyo Radio Muqdisho ee Soomaaliya burburkii dawladii hore ka hor haddaba Cabdullaahi Cabdi Sheekh tiftiraha laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa Axmed Siciid Ciga waxa uu ka wareystay waayihiisa saxaafadda waxa uu ugu horreyn weydiiyay waxyaabaha uu soo joogay intii uu BBC-da la shaqeynayay Cabdullaahi oo BBC-da muddo 20 sanadood ayaa la soo shaqeynayay January 15keedii 1999 ilaa iyo imaka oo November dhamaadkeedii ah 2018 markaasi waxyaabo fara badan baa soo maray intaasi laakiin hadii aan soo qaato 1999 markii aan bilaabay in aan shaqeynayay shaqada ayaa waxa soo maray halkan gobolka markii dawladda ku meel gaarka Soomaaliya loo sameeyay iyadoo dawladda dhexe Soomaaliya markii ay burburtay 1999 Djibouti baa lagu qabanayay shirkii Carta marka Soomaaliland may ogolayn shirkaasi waxaan xusuustaa markaasi in sidii war aan u doonayay ay la gashay in wafdi ka yimi dalka Djibouti oo baarlamaan iyo odayaal isugu jiray oo markaasi doonayay halkan in ay ku qanciyaan shirkada ka qayb galaan oo loo diiday diyaarada inay ka soo degaan waana madaxweynihii markaas Soomaaliland Allah naxariisto Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal amarkaasi uu bixiyay ayaa garoonka diyaarada aan tago dabadana waxa ii suurta gashay sidii warkii aan doonayay in diyaaradii ay saarnaayeen in aan gudaha u galo oo ninkii gudoomiyaha ahay markaasi watay aan ku soo wareysto dabadana markii dambe ay wasiiradii joogay Soomaaliland halkaasi ay dabadana igu qabtay laakiin markii dambe ay isku qarxiyeen in ninkani warkiisi maskaxda uu ku haystay haday ku qaadno qalabka marka iyaguna aan ku qarxiyay in ay keenaan qaybtoodii marka waxyaabo kale fara badan bay soo maray doorashooyinkii shanta ahaa ee soo maray Soomaaliland oo saddex doorasho madaxtooyo oo kala dhacay 2003 2010 tii ugu dambeysay oo aynu saddexdii murashaxba isugu keenay BBC-du markii ugu horeysay dood debate way fara badan yihiin waxyaabaha ay soo maray inta 20 sanadood ah qaraxyadii baa kamid ah madaxtooyada Soomaaliland iyo xafiiska qunsuliyadda Ethiopia iyo xafiiska UNDP 29 bishii October 2008 oo markaasi BBC-da nigo matalayay qofkii ugu horeeyay ee markaasi madaxtooyada galay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo markaasi gudaha ku jiray oo qarax ku jiray laakiin aan waxba noqon aan markaasi indhaha ku soo arkay isaga iyo dereertiisa xagga sare deganaya xaaskiisii dadana codadkii ugu horeeyay markaa ka soo qabtay in madaxweynaha arrimuhu waa bandayeen Cabdullaahi laga gayoon maayo Axmedow laakiin dad badan oo saxaafadda BBC-da ku jira waxay aad kugu ixtiraamaan in aad maaragtay mihnadaadii saxaafaddu ilaalinaysay isla markaasina aad u hufnayd oo maaragtay inta badan dhinacyada ay kugu kalsoonaayeen arrintaas ay kugu suura gashay in badan baa la weydiiyay Cabdullaahi oo qofka bini aadanka waa sida uu iska dhigo oo markaad xirfadan taqaano anigu doctor oo yar baan bilaabay oo 18 jir Radio Muqdisho Radio Hargeysa markii dabada la soo bedelay dib baan dabeetana 1990 jaamacadda doonto waxbarashadayda xagga mihnada saxaafadda inaan sii kororsaabaan doono kulliyadii saxaafadda ladkii labaad baan markii la furay laga furay kadibna waxaan ahaa wariyay ugu horeeyay ka hadla telefishinka Soomaaliyeed markii la furay 22 October 1993 waxaan ka faa'iiday markaasi inaan helo waxbarasho Masar baan ku soo bartay tababartay oo istuudiyaashooda waaweyn iyo aan tagay oo 5 bilood joogay South Korea ayaan tagay waxaan tagay Baghdad waxaan tagay markii dambe BBC-da de wadiga Ingiriiska tababaro badan ku qatay marka tababaradaasi way caawiyeen waxa kale oo jirta shakhsiyadda qofka adigu hadii aad doonto in aad markaasi farta lagu soo fiiqo la yiraahdo dhinacaas ula jira dadna tuka balcad aad noqoto adeeg ku jirta iyo in aad dadka oo dhan kugu kalsoonaadaan oo dabadna qof waliba dabadeetana uu ku ixtiraamo Axmedow dadka BBC-da ku jira xoogaha way kaftamaan oo marar qaar waxay leeyihiin Axmed ma jecla safarka arrintaas maxaa ka jira Cabdullaahi waa jeclaan jiray oo waxaan xusuustaa 1988 mar aan socday 3 maalmood diyaarada aan saarnaayo intaan ka baxay Muqdisho Rome aan maray oo Rome aan ka tagay oo dabadeetana aan tagay airportkii markaa ugu quruxda badnaa Charles de Gaulle airport ee Paris ku yaala dabadeetana 6 saacadood halkaasi aan joogay dabadeetana mabaanaygi khariidadii dabadeetana aan ka gudbay Atlantic-ga oo aan tagay Anchorage oo ah in Alaska ee dalka Mareykanka dabadeetana aan ka sii duulay oo aan tagay dabadeetana Seoul South Korea waxaan eegay markaa 3 maalmood oo baan diyaarad saarnaa markaa waan jeclaa marka hore laakiin marka dadaadu marba mar ka dambaysa waa wax iska caadi ah waasigu waa iska jira inta dambe
marka Axmedow dabcan dad badan oo saxaafadda soo galay rabaa jira haatan oo dhalinyaro ama jaamacadaha dhigta oo adiga iyo dadka saxafiyiinta kale ee saxaafadda ku jira ay u yihiin dadka ay ku dayanayaan oo ay fiirsanayaan dadkaasi maxaad leedahay wallahi dadkaasi in badan baan idhaahdaa anigu badana dadka mikrofoonka hadee marka aan idaacad ka shaqeynayo mooye meelaha kale soo taagan mayhi laakiin marar ay saxaafadda kulantay waan u sheego waxaan ku uri manfac iyo magac meel ma wada geli karaan labada ninkii doonayo in manfac wardo ganacsato iska noqo in qofkii magac doonayo una saxaafadda magac uma laga helo walaata Soomaalida ee isdhowra marka qofku waa ina uu afkiisa iyo agtiisa iyo meesha uu marayo waa inuu ilaaliyo xataa marka aad suxufi tahay ee hay'adan warbaahinta BBC oo kale aad u shaqeyso oo kale ama hay'ad kale marka aad cid la fariisatay cid uu aad markaasi aad la macno noqoto waxa la oranayaa halkaas uu ka tirsan yahay laakiin marka aad caadi noqotay dadka aad u siman tahay aad meel unde aad dadka oo dhami ay aad la macaamisho ayay marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in qofku oo aad suxufiga u taxadiro oo sharaftiisa dhowrto oo waa la khaldami karaa marmarka qaarkood laakiin marka aad hadii aad gafka dhaco ama la tirsado ma inaad ka gabato waa inaad qanciso aniga weligay telefonkayga soo wacay oo aanan ka qabanin ma jiro dadka qaar bay saa u eegaan dabeetana aan qaban qof kastana waan qanciyaa qofka doona ma arko in uu khaldan yahay oo wax aanu rabin oo propaganda doonayna runtaan u sheega kama wareeray waxaan ku radaa malihid mana helaysid hore ayaad arrintaasi aad uga hadashay imankana adiga lagu jawaabayay ragga ugu waaweyn ee madaxda ah ee halkan igu soo maray ee Somaliland ayay taasi nagu wada dhacday markii dambe gidi way arkeen in aanan anigu dhinacna ka tirsan